tashi iyo talo toosan ayay aamin kasta isugu yimaadaan ka hor inta aysan si maalinle ah u gudagelin shaqo mas'uuliyadeedu culus tahay laakiin dheef togan leh. duruufo adag oo isugu jira mid dhaqaale, mid amni iyo kuwa kale ayay ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliyeed, taas oo ay jirtana way ku qanacsan yihiin shaqadooda. wuxuu ku shaqeeyaa macallinka Soomaaliyeed waxa waaye duruufo gaar ah oo aysan la qabin macallimiinta kale ee adduunka. waxaa laga yaabaa duruuf gurigiis ka jirto oo dhaqaale darre ah inay jirto. duruufo adag ayay wax nagu soo bareen macallimiinteena dharaar iyo habeen waxay u taagan yihiin horumarinta jiilka Soomaaliyeed oo aan inaga qayb ka nahay. maadaama bari tahay 21 November maalinta macallinka Soomaaliyeed ayaan dooranay inaan idin la wadaagno duruufaha adag ee ku shaqeeyaan macallimiinta Soomaaliyeed. Sugayntooda waa 75 darajo. Resultiga natiijada halka ka soo baxday waa 75 darajo waa compound angle. Ustaad Macaani Khaliif Bana oo in ka badan 21 sano macallin ahaa ayaa inooga sheekeynaya caqabadaha ay la kulmaan barayaasha Soomaaliyeed. macallinka wuxuu dhisaa maskaxdii oo bini'aadamkaas ayuu dhisaa meesha kuwa kale ay ka dhisaan derbi iyo baawo oo maxalli yiraahdaa iyo laamiyo, laakiin macallinka wuxuu dhisaa bulsho ama maskaxda uu ka dhisaa. marka macallinka qiimo weyn ayuu ugu fadhiyaa bulshada, khaas ahaan macallinka Soomaaliyeed qiimo weyn ayuu ku fadhiyaa sababtoo ah wuxuu ku shaqeeyaa macallinka Soomaaliyeed waxa waaye duruufo gaar ah oo aysan la qabin macallimiinta kale ee adduunka. waayo waxaa laga yaabaa mararka qaarkiis meesha uu maraayo inay nabadgelyo xumo iska jirto, inuu wax barano waa rabaa. waxaa laga yaabaa duruuf gurigiis ka jirto oo dhaqaale darre ah inay jirto, macallinkii wuxuu rabaa inuu wax baro. duruuftaasaa usii dheer marka macallinka Soomaaliyeed taasna waaye tan uu qiimaha ku yeeshay. macallinka Soomaaliyeed uu kaga qiimo badan yahay macallimiinta kale ee adduunka. marka macallinka waxaan rabaa inaan ugu dambeyntii marka u soo gudbiyo maadaama intaas waa ammaan uu leeyahay. marka waxaa ka imaan jiray xagga nabadgelyada oo wadooyinka iska xumaan jiray, laakiin hadda alxamdulillah waa ka fiicannahay. caqabado marka kuwaas waxaa kaga sii darnaay oo kale caqabado oo fasalka gudihiisa rabshado dhaco, maxaa la yiraahdaa arday kugu hadlo oo kale oo wax ka dhigi weysi. macallin dhaliil oo aan meel u socotaba marka aan jirin. intaas oo caqabada ahna marka waa jiraan. Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. inkastoo ardayga naftirkiisa dhaqaale xumo wajahayo, misana ardaydan heerarka kala duwan leh waxay si milgo iyo sharaf leh u maamuuseen macallimiintooda kobcisa garaadkooda. waxaan la kulannay qaar ka mid ah macallimiinta Soomaaliyeed oo sanado badan ku guda jira waxbarashada, qaarkood 20 sano, 10 sano iyo 5 sano wixii ka hooseeya. waxay sharaxaad ka bixiyeen habka ay wax u baraan ardayda Soomaaliyeed iyo duruufaha kala duwan ay soo mareen oo ay wax ku baraan ilaa iyo hadda ardayda Soomaaliyeed. macallimiintu waxay ku soo shaqeeyeen duruufo tan sanadahan iyo sanado ka badan ayay dalkan waxay ku soo hayeen xaalado aanan hal eray laba eray aan ku soo koobi karin. waxaan ognahay muddooyinkii 30 sano ugu dambeysay dalka waxaa ka socda dagaallo iyo isqabsi oo dhan walba taabanaya, laakiin macallimiintu waa kuwa kaliya aysan dagaalladu saameynin, waa kuwa kaliya dalkan maanta heerka uu taagan yahay iyo badbaadada dalkan uu taagan yahay sabab u ahaa. maxay tahay fariinta ardaydan ay u direen guud ahaan macallimiinta Soomaaliyeed? halkaan iga hambalyeynaya dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed hambalyo meel kasta dunida ka joogta. waxaa macallimiinta Soomaaliyeed leeyahay hambalyo meel walba ay joogaan, gaar ahaan macallimiinteeda iskuulka Jaabir markoodii mar labaad waxay idin leeyahay hambalyo. waxaan halkaan ugu hambalyeynayaa dhammaan macallimiinta Soomaaliyeed. waxaan leeyahay jiro jooga maanta maalin kale sanadkan waa sanadkiini hambalyo meel walba joogta.